wareejiyey cabdi madoobe waxaan jeclahay inay si fiican ula shaqeeyaan kana qayb qaataan halganka iyo dib u xoreynta dalka haddii aad oran lahaydeen war anagu leen baanu ahaanaynaa halkeenaasa joogin halkiina idinkuma daynayn halkiinaani lidikuma sii daayeen wallahi inta lidinku yimaado waa madax lidinkaga guri lahaa marka xaajadeennu waxa weeye wax bad weeye cadowga ama qofka la socdaayay wallahi wax bad weeye waxa weeye cid wax laga weydiinay abii hooyadii iyo walaalkii baa wax lagama weydiinayn marka ku soo dhawaada halgan wajahad cusub hadduu ilaahay yiraahdo waxa weeye markii horena dee ciidanka jabhadda gobolka cayn ka guuray baa bahasha dee furaha ku ragay oo gobolka sool bahasha ka shiday haddeerna idinka iyo ragga kale idin lamidka baa waxaa laga rabaa inaad furaha ku rogtaan halkan waana lagu rogaya hadduu ilaahay yiraahdo ciidanna wuu idinka horreeyaa idinna halkan aad degantihiin waad garanaysaan oo saldhigyada dhulkan ka yaalla iyo ciidamada jooga waad garanaysaan si fiican baad u garanaysaan oo maanta in gobolka sool bay xabaddu ka dhacaysaaye waxaan diyaar idinka rabaa inay gobolka togdheer ka dhacdo arrintaas ma ka dhabaynaysaan in cadowgu maro 40 kilomitir idin mara maraalli baynu ka noqon karnaa oo waxaan qaadan karnaa raxiim anigoo ah korneyl maxamed deeq ahaana taliyihii ciidankii jabhadda SNM ka mushar qaadan jiray ninkii xukumi jiray waxaan halkan ummadda reer SSC aan u sheegayaa in ciidankii aan xukumay oo kan i hor taagan laga bilaabo maanta inuu diyaar u yahay inuu u hiiliyo dadkiisa iyo dalkiisa isagoo uga hiilinaya jabhadda argixisada SNM xeradan aan joogno oo xeradii Caraweyn oo iyadana aan mas'uuliyaddeeda ku wareejin doono galabta cabdirashiid xuseen cali oo gudoomiyaha jabhadda SSC laga bilaabo galabtana waxaan xeradii ku wareejiyey gudoomiyaha jabhadda SSC ciidankii aan xukumay anigu aan xukumay laga bilaabo galabta waxaan ku wareejiyey cabdi xuseen cali cabdi madoobe cabdirashiid maanta wuxuu la wareegayaa ciidankan oo markii hore ka mushaar qaadan jiray jabhadda argagixisada ee SNM waxaan aad ugu mahad celinayaa ciidankan oo diyaar maanta u ah inay halgamaan oo dadkoodii la dareen noqday oo doonaya inay insha Allah biidnillaahi kariim halganka iyo dib u xoreynta deegaanada SSC ay ka qayb qaataan waxaan runtii u mahad celinayaa juhdiga iyo dadaalka ay ku bixinayaan saraakiisha dhalinyarada ee waxtarka ee uu ka mid yahay korneyl cabdiqani sulub oo la yaqaano halgankana ku suntan baan aad ugu mahad celinayaa waxaan kaloo fariin u dirayaa niman aan markii hore meeshan wada joogi jirnay oo runtii iyagu maanta aad moodday inay dhiiggii dadkoodii ay cabbayaan suurtagal maaha kuwaasuna sidii dhulbaanta isu laayay xabadda isula dhacay baan isula dhacnaa hadday ka waantoomi waayaan hor iman waayaan saxaafadda dadkooda la dareen noqon waayaan warsawtaa diyaar uma nihin miyaynu u adkaysannaa qof doonaya inuu dhiiggiisa iyo shacabkiisa cabbo miyaynu u adkaysannaa nin doonaya walaalkii oo furinta jooga inuu ka warbixiyo waxaan diyaar u nahay inaan dhiigga iyo dheecaanka iyo dadnimadayda in aanu u hurno deegaankayaga haddaanu shalay SNM mushaar ka qaadanay riwaayad bay ahayd laakiinse maanta suurtagal maaha waxaan la mowqifnahay taliya maxamed deeq oo runtii go'aan geesinimo la qaatay waxaan la mowqifnahay qof kasta oo waxtara oo SSC sida jenaraal cabdi madoobe war diyaar ma u nahay inaan dalkeena xoreyno guul iyo gobonimo bismillaahi raxmaani raxiim maanta halkan waxaan isugu nimid ciidankii uu xukumay maxamed deeq oo muddo badan halkan deganaa ciidankan oo hore Soomaaliland uga mushaar qaadan jiray laba meeloodna u kala jabay oo badhna uu halganka ka qayb noqday horay oo ku dhintay oo ku dhaawacmay qaybuna ay halkan joogtay ciidankan ciidan maaha garabta isa soo dhiibay
وعيدا مدهور سوج markii halkan ku bilaabmay cadawga ka soo diga rogtay waxay garabta lagu wareejinayaa jamhadda SSC iyo jamaahiirta haday awal ahaayeen ciidan Soomaaliland ka mushaar qaata haday ciidan ahaayeen beesha reer Arigari maanta waxay noqdeen ciidan jamhadda SSC waa la wareegayaa way halgami doonaan diyaar ma u tihiin halgantaan ciidanka halkan joogo run ma idin ka tahay dalkiin ilaahay ma inagu ogyahay inaad dhiigiina bixisaan diyaar ma u tihiin 40 kilomitir bacayna bay idin jirtaa inaad halkan badar ku cuntaan anigu galabta raali kuma yahay oo sii fadhida di halkan ku mudaacad idinka yahay diyaar inaan israacno oo caynaba iyo og 40 kilomitir ciidana inaga horeeyo jamaahiirtu inaga horeyso soo diyaar uma tihiin waa inagu ballan ilaahay galabta waa galab bishu 4 tahay waa garab wanaagsan oo garab khayr qabta aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa karaamada aad leedihiin sharafta aad leedihiin qalabka aad wadataan ee banaanka ula soo baxdeen oo maanta in gobolka Sool bay xabadu ka dhacaysay waxaan diyaar idinka rabaa inay gobolka Togdheer ka dhacdo arintaas ma ka dhabaynaysaa in cadawgu maro 40 kilomitir idin marali baynu ka noqon karnaa oo waxaan qaadan karnaa in rageenu uu ku dhinto gooja cad oo ku dhamaado cadawguna 40 kilomitir idin maro miya waad guuraysaan galabta ma fadhiyaysaan halkan saacadaha soo socda waxaan rabnaa in cadawgu meesha uu joogo inaad tagtaan baan idinka rabnaa ila meeraysa iyo ila warwareeg iyo in riwaayad iyo isku sawir adduunyo ma jirto ha ku fakirin inuu adduunyo waa laga tagay nacfi in halkan nacfi lagu raadiyo iyo in jamaadan nacfi laga raadiyo waxaas ma jiraan haddii kaba suun ka furan aad wadatay kuwa suun dambale inaad galabta xirataan baan idinka rabaa kuwa suun dambale inaad xirataan baan idinka rabaa inaad guuro iyo galab carrow u diyaar garowdo baan idinka rabaa ciidanow waan idin mahad celinaya sharafta idinka muuqata iyo karaamada idinka muuqata beesha reer Arigari baad sheegateen waxaan idinka rabnaa ma rabno anagu ciidan beeleed ciidan af qabiil ku hadlaya ma rabno ciidan jamaahiiraan galabta rabnaa diyaar ma u tihiin taa diyaar ma u tihiin hadal badan oo ii ceedhini ma jiro aniga magacaygu Cabdilaahi Maxamed Xuseen Shaabuug gudoomiyihii deegaanka Carraweyn aad iyo aad baan waxaan u hambalyeeynayaa saraakiisha hareerahayga tuban General Cabdirashiid Xuseen Cali Cabdiqani Sulub Jibriil Maxamed Deeq Maxamed Ismaaciil Cabdi Ismaaciil aad iyo saraakiisha kale iyo saraakiil xigeenka iyo askarta iyo dableyda dhamaantiin aad iyo aad baan idin hambalyeynaya alxamdulillah galab iga qurux badan oo iga wanaagsan oo iga sharfoon xaqiiqatan cimriga aan joogay cirada igu taal lama soo joogin intaas oo tolkay ah oo qof iga fog aan lahayn oo isku hadaf ah oo saraakiishoodii iyo madaxdoodii iyo manjahoodiiba maskaxdoodii iyo miirkoodii iyo maankoodu meel wada jeedo alxamdulilaahi rabbil caalamiin wax ilaahay laga sugo adduunka yaalla jannadii lay ballan qaado un bay hadhay aakhiro adduunka wax ka sukeeyo oo aan ku farxi lahaa oo iiga weyn xaqiiqatan ma garanayo waa mahad leh annagu ah odayaasha beesha reer Arigari waxa ilaahay mahadiya oo ilaahay mahaduu sugnaatay inuu maanta xafladda suuqan keeno oo ka mid ah xafladaha ugu qiimaha badan intii aan weligay xaflad ka qayb galiyay way sababtu tahay raggan aad arkaysaan waxa maal gashaday oo shidaal ku shubtay oo qoriga u dhiibay oo xabadda ugu dhiibay inay ehelkooda kula jeestaan cadawga xusan se ogeyn aqliga ay leeyihiin iyo damiirka ay leeyihiin iyo dadnimada ay leeyihiin iyo taariikhdoodu san aqoon uma dhiibeen cadawgu wuxuu idinku dhiibay ehelkiin haddaad galabta isaga kula jeesateen qorigu idin dhiibay iyo xabaddu idin dhiibay isagu garan waayay oo deesmu lahayn saas yeelayaan laakiin idinku waad garateen waajibka aad iyo aad baad mahadsantihiin magaalada Carraweyn in laga sifeeyay ayna SSC ka shaqaynayso xeradaasi waxaradii ay deganaan jirtay Soomaaliland waxa joogta xaqudirka SSC waa laga sifeeyay noolama joogto horgal kumalihin waxba nagama dhaxeeyaan horgal kumalihin Muuse biixina kaasa noo dhaxeeya ka
waana aragtaan daraawiishtii baanu nahay gabdhihii awoowayaashood soo halgameen ay ka furteen ingiriis ka furteen koofil dileen awowgay baa koofil dilay Ismaaciil Mire waa dadkii ka furtay maanta waxaan ku rajaynayaa Muuse Bixi iyo inta uu soo diray inaan ka furto qoryaha oo kaa ku furto kaa inaan ku furto ka rajaynahay oo aan ka sifeeyo Soomaaliland arliga ay joogto ka sifeeyo Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan waxa weeye ragga saraakiisha dhammaan iyo ciidamada dhammaan waan salaamayaa salaan kadib kulay si guud de hadalku uu urursan yahay maanta xafladan waxaan isugu nimid ciidankan xerada Carraweyn joogay walibana Carraweyn laba qaybood bay ahayd qaybna jabhada ka deganayd qaybna ciidamada Soomaaliland ka mashaar qaadan jiray deegaanka u dhashay baa ka deganaa marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa waxaanu maaragtay ku guuleysanay labadii ciidanba inay hal ciidan isku noqdaan taasna waxa weeye maaragtay waxa ku mahadsan Colonel Maxamed Deeq oo dadkiisii iyo deegaankiisii la dareen noqday waana kala wareegnay sida ugu wanaagsan baan ula wareegnay la wareegitaankuna de waxa weeye ma noqonayo mid ciidan de meel iska fadhiya oo waxa weeye maaragtay meel iska fadhiya oo aan shaqeynayn oo aan halgamayn ma noqonayo haddii Ilaahay yiraahdo ciidanku wuxuu noqonayaa ciidan shaqeeya oo halgama oo dhinta oo dhaawacma oo waxa weeye duruufo fara badan oo waxa weeye maaragtay idinba aad garanaysaan oo de ragga dagaalamay uu ku jiro aad maraysaan idinna haddii Ilaahay yiraahdo inta waxaan ku darayaa si guud ciidanku ciidan fara badan buu ahaa markii koobaad ba ciidanka jabhada uu ka guurayay gobolka Cayn uu ka guurayay qayb kamid ah ciidankan la guurtay oo xabada la gashay ayagoo bisha maleeshiyaadka Soomaaliland mashaar ka qaatay isla bisha gudaheeda hadana xabada ragii jabhada la galeen waxa weeye la mid ahaayeen oo la dhaawacmeen oo la shahiideen oo waxa weeye maaragtay wax tar badan laga helay kuwana waxa weeye maaragtay kuwii ba la mid yihiin marka si guud waan soo dhaweynaynaa halgan baan idinku soo dhaweynaynaa halgankaas waxa weeye maaragtay mirihiisana haddii Ilaahay yiraahdo jiilba jiil uu ka sii dhaxli doono inta markaan ka soo gudbo si guud de waxa weeye maanta marxaladda meesha ay marayso waanu garanaynaa waa laba waxa weeye dadku waxa weeye maaragtay qof cadow ah iyo qof cadow iska difaacaya aslanba firqa saddexaad ma jirto haddii aad oran lahaydeen war anagu leen baanu ahaanaynaa halkeenaas joogin halkiina idin kuma deyneen halkiinaani lidkuma sii daayeen wallahi inta lidinku yimaado waa madax lidkaga guri lahaa xaqiiqda maaragtay jirtada wataa way qof maanta waxa weeye lagu eeganayaa xumaanta uu ku jiro ama tacadiga ama deegaanka iyo dadku ku hayo lagu eeganaya aslama ma jirto waxa la yiri zamankii daraawisheed waxa la yiri qofka aan xujooba iyo qofka waxa weeye maaragtay waxa weeye cadawga waxa weeye la shaqeyn la yeeshayo waxa la oran jiray kadad u xigay in adeerkii iyo walaalkii baa loo diri jiray xilligii zamankii daraawisheed oo ayaga madax ka goyn jiray ayaga kharajin jiray laakiin maanta zamankaasi waa ka duwanaayo waxa weeye nin allaala qofka lagu tuhmo ama lagu helo ama kiis lagu helo qof allaala ama horgolnimo lagu helo qof allaala qofka noogu soo horeeya madax ka goonaya ilaahu may 10 ama 20 waday kala tirsadaan ninka dhulbaanta madax ka goonaya kan hartiyadba madax ka goonaya kadaarodba madax ka goonaya waxa weeye zamankii daraawisheed waxa loo diray walaalkii adeerkii baa loo diri jiray hadda looma dirayo waxa weeye kadaarodba wallahi soo dirayna madax ka jaray ka hartiyad marba ninka ugu soo horeeya waxa weeye nin laga weydiinayo qoyskiisa war ninkan qabsada ama xogtaas laga hayaa ama aslan ma jirayso gacanta loola tagayaa hadduu waxa weeye meesha ugu adag hadduu galo xataa ku baxsan maayo marka inta waxa weeye gacanteeda ku bixi lahaydeen waxa weeye kulay laba mar walba geerida iyo dhaawaca iyo juhdiga la bixinayo mar walba waxa weeye wuu jirayaa marka gacanta ciidamada xaq u dirarka intaad ku bixi lahaydeen tacadaw ku baxa oo si sharaf leh waxa weeye maaragtay u dhinto u dhaawacmo oo waxa weeye dad sharaf la noqdo marka si guud waxa soo dhamaaday si guud in la ogaado wax la yiraahdo wada xaajood iyo bariyootan iyo in hebelow iyo in adeerow aslanba way dhamaatay marka xaajadeen waxa weeye wax bad weeye cadawga ama qofka la socdaayay wallahi wax bad weeye waxa weeye cid wax laga weydiinay abi hooyadii iyo walaalkii wax laga weydiinayn marka ku soo dhawaada halgan wajahad cusub hadduu Ilaahay yiraahdo waxa weeye markii horena ciidanka jabhada gobolka Cayn ka guuray baa baasha furaha ku ragay oo gobolka Sool baasha ka shiday hadeerna idinka iyo ragga kale idin la midka baa waxa laga rabaa in furaha ku rogtaan halkan waana lagu rogay haddii Ilaahay yiraahdo ciidanna uu idinka horeeya idinna halkan aad degantiin waad garanaysaan oo saldhigyada dhulka ka yaala ciidamada jooga waad garanaysaan si fiican baad u garanaysaan xuduudda iyo waxa weeye maantaan xabada gal maanta ciidanka jabhada maantu 3 jeer awood badan yahay
marka waxa weeye isku kalsoonaada ragga ciidanka aad ku biirteen ku kalsoonaada mana jirayso hadduu ilaahay yiraahdo waxa weeye cid dambe oo wax laga sabsabanaya in adeerow sida yeel ka yar inaysan jireen ku xisaabtama wax lagu xisaabtamaya waa xabad kacdowga qoriga afkiisa waa lagu xisaabtamaya kan annaga inaga midka waxa weeye dheeliyana taa uma lagu xisaabtamaya waxaad ogaataan talada deegaanka iyo dadka iyo gobolada SSC maanta inaysan laba ahayn taladu maanta waa mid weeye si guudna waxaad wada ogsoon tihiin in guddi 33 iyo ismadeeni in taladii deegaankan iyo dadkan ay mas'uuliyadoodii ayagu qaadeen marka si guud waxaad wada ogaataan mar walba inay maanta taladeena ay mid tahay marjac loo laabanayna waad garanaysaan waa guddida 33 iyo ismada weeye wixii ay soo saaraan umba goboladan iyo deegaankan aan ku noolnahay ka shaqeynaya marka si guud waxaad ogaataan ummaddan maanta inaysan tafaraaruqsanayn inaysan taladeeda laba ahayn ay mid tahay